500 oo sigaar ah. Tani waxay ahayd markii ugu horreysay ee Bortus arko sigaar. Lamaanihiisa Aliden ayaa mid si toos ah afka u geliyey. Maxaad samaynaysaa? Waxaan rabay inaan dhadhankiisa ogaado. Ma aha cunto. Bortus ayaa sameeyey 2 sigaar oo kale, dabna ku shiday habkii uu Sherman u sheegay. Dhadhanka wuxuu u ahaa wax yaab leh, laakiin si la yaab leh ayay u jeclaadeen. Fiidkaas markii Ed iyo Kelly galeen qolkooda, waxay u ekaatay sidii meel sigaar lagu cabo. Miiska waxaa ka buuxay sigaar. Iyagoo ka walwalsan caafimaadkooda, Ed wuxuu geeyey qaybta caafimaadka. Kadib baaritaan, dhakhtarku wuxuu sharaxay in noocooda uusan waxba iska caabin karin nikotiinka. Hal maalin gudaheed waxay cabbeen in ka badan 1,000 sigaar. Haddii ay xitaa 10 daqiiqo sigaar la'aan noqdaan, jirkoodu wuu gariiri lahaa. Dhakhtarku wuxuu ballan qaaday inuu daawo samayn doono, laakiin waxay qaadan doontaa waqti. Ilaa markaas waa inay isku xakameeyaan rabitaankooda. Maalintii xigtay, Bortus markuu shaqada ka yimid, wuxuu qabtay Aliden oo mar kale sigaar cabay. Isla markiiba way murmeen. Dhakhtarku si cad ayuu u yidhi, sigaar dambe lama ogola. Laakiin Aliden ma awoodin inuu iska joojiyo. Markaas Aliden wuxuu arkay sigaar gees yaalla, wuxuuna Bortus ka weydiiyey. Markii lagu cadaadiyey, Bortus wuxuu qirtay dhammaan sigaaradii uu kariyey. Intii cashada lagu jiray, Aliden wuu adkaysan waayey, wuxuuna isku dayay inuu mid kale shido. Bortus ayaa joojiyey kadibna wuu feeray. Labadoodii way isdagaaleen. Nasiib wanaag, dhakhtarkii ugu dambayn wuxuu helay daawo ka caawisa balwadooda nikotiinka.